بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ka salaamaynaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta oo ku sugan yihiin gaar ahaan waxaan dhiirigelinayaa oo guwaabinayaa Falastiin iyo Burma muslimiinta ku nool Soomaalida wax badan baan guwaabiyay waxba uga qaadan waayeen hase ahaatee kama daalayo inaan ummadda islaamka ah markasta kiciyo guwaabiyo haddii la idmo waxaan ku soo gudbinayaa halkan gabay la yiraahdo Myanmar gabaygan wuxuu soo baxay 19 bishii 9aad 2017 waxa ay soo gaadhay hadalla ay jeediyeen nimanka muslimiinta laayay ee Myanmar oo ay isku difaacayaan aadna anagu xumaaday xilli habeen ay ahayd gabaygan waxaan ka turjumayaa magaca Soomaalinimo iyo haddaan haysan lahaa dawlad iyo military iyo diyaarado iska daa inaan u hiiliye waan qabsan lahaa waan shiidi lahaa Myanmarta iyo waxa joogaba waqtiga laakiin si ciiray waan sirjeenay insha Allah gabayga Myanmar sidaan u dhacayaa dhageysi haboon mana xifdisaniye wixii ka qaldan halaga dul qaato gabayga Myanmar soo bilowday waa kan hadaba wuxuu yiri mawlow Allah ayaa wadaan maagin aadmiga ah mid kastaba wixii uu mutaad mid ka saartay muslimiinta nimanka marshee maalin iyo leelba malaayinta naga laynayee amir ka barheebin maatada kuwa laynayee milic lugeysiiyey macagigiinta Myanmar la baxay wayna mariyeen ma daayeen haddaan migag iyo maamul leeyahay malaayiin diyaarado haddaan maanta leeyahay muslimiintu ay wada maqlaan meel la wada joogo mataaniyo haddaan noqon lahayn midig walaalaahe muruq laguma haysteen rabbow maanta Falastiini macdanteyda laba maamuleen maalin gelinkeedii gelin lama muquusheen sidii sidii maahir oo kale maghrib ima haweysteen tigree imana maageene sacuudigii muqleysnaa ima migeeyeen wadamadan carabta inta badan waan dhaliilo oo doorka ka gaabiyay iyagoo hogaamiyay haddaan muslimiinta nahay ayay ka gaabiyeen doorkii ay lahaayeen marka waxuma dhimayo laakiin waxaan sheegayaa un dhaliishooda iyo wixii ay ka gaabiyeen iyo wixii la gudboonaa haddii la helo saan aaminsanahay 10 hogaamiye oo Urdugan oo kala ah wax badan baa hagaagi lahaa oo wadamada muslimiinta ka soo jeeda wuxuu yiri sacuudigii muqleysnaa rabbow ima migeeyeen arab ima mataasheen haddaan maadin leeyahay kuuriya miciin maan bideen imana muuqdeene miyaan kuuriya bari lahaa maya dayib lama muquusheen sidii meedhaxda dayib lama muquusheen sidii meedhaxda kale waa Urdugan maandeeq lagama maaleen rabbow maaxda caanaha Myanmar ilaahow ku kici malaxya dacuunba ilaahay mariyo midna yuusan gaalada ka hadhin waan mintidayaaye muslimiinta eebow midee meel ka wada jeedi midigtana rabbow isqabsanaa meelaan joognaba allahayow ma kala maaranee meel ka wada jeedi militarina eebow isii waan masiixi gaale haddaan haysan lahaa awood military waan shiidi lahaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا أقول الله يهلا بوشيكو
aad iyo aad ayaan idiin salaamayaa dhammaan intii af taqaana ujeeddada gabaygeena fahmaysa kuwii wax ku qaati lahayn naga dhigo. Assalaamu calaykum.